Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada 4kfile.com. aad ayaad u mahadsantihiin akhyaarta 4kfile. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay Facebooka sidaad ugu dar lahayd YouTube-kaaga, YouTube channel-kaaga ama YouTube channel-kaaga aan dhaho sidee ugu dar lahayd. sidaan haddii aragno page-ka waxaan joognay 4kfile.com. Facebook aan ku leenahay. haddii aad rabto inaad ogaato sida Facebooka loogu daro ama install gareeyo YouTube-kaaga, watch the video. waa tahay akhyaare, waxaad tegeysaa page-ka aad ku leedahay Facebooka. marka aad tagto page-ka aad ku leedahay Facebooka, meesha search button-ka waxaa ku qoraysaa YouTube tab. marka YouTube tab ku qorto, waxaan ku dhufanaynaa midka hore use app baan leedahay. markaan dhahno use, waxaan leenahay hoos ayaan aadaynaa. waxaan leenahay install this application. markaan install this application dhahno, page-kan ayaa soo baxayo. markuu page-kan soo baxo, haddii aad leedahay pages badan, halkan ayuu kusii dhahaa drop down-ka. laakiin hadda anaga waxaan leenahay hal page. marka page-ka adiga aad leedahay aad dooranaysaa. markaad doorato waxaad leedahay add page tab. okay, installation-ka waa una wadaa. waa tahay application-ka waa uu noo dhameeyey. waxa uu ku weydiinayaa channel ID-gaaga ama playlist inaad samaysay. okay, marka waxaad samaynaysaa, waxaad tegaysaa YouTube-ka page-ka aad ku leedahay. marka aad tagto YouTube-ka page-ka aad ku leedahay, wixii ka dambeeya www.youtube.com/channel wixii ka dambeeya, intaas wuxuu raba ahaado ayaad copy leedahay. okay, magaca ka dambeeyaba www.youtube.com/channel wixii ka dambeeya ama ha ahaato example ama channel-keenaba ayaan soo copy-naynaa. markaan soo copy-no, meeshan ayaan paste ku leynaa. okay, markaan paste ku dhahno, halkan waxaa aragtaan meesha inay ku qoran tahay featured video ID. waa kan oo kale macnaha page-ka marka hore videoga muuqanayo, markii qofka click uu siiyo ayaad gelinaysaa. halkan waxaan gelinaynaa hal video kamid ah videoyaasheena 4kfile. mid kamid ayaan gelinaynaa. marka waxaan copy-naynaa kan. waxaan u baahannahay ID-gan wixii ka dambeeya calaamad question markaas wixii ka dambeeya watch whatever ka dambeeya question markaas. okay, ID-gaas ayaa la dhahaa v equals to. okay, ma aha mar walba inay v ahaanayso, laakiin waa fahmi kartaa wixii ereyga question markaas ka dambeeya ayaan copy-naynaa. markaan copy-no, wax kala ma taabanaysid. okay ayaad leedahay, save aad leedahay. waad aragtaan markaan save dhahnay, waxaan ka hadlayaa featured video. waa kan ayaan lahaa featured video. waad aragtaan waxaa noo soo baxay YouTube-keena inta video ku jirto. ha isdhihin 4 xaba ayaa maanta ku jirto, laakiin every time aad video YouTube-kaaga aad geliso automatic waa update gareysmayaan. qofkana subscribe ayuu ku leeyahay asagoo Facebook isticmaalaya. marka waxaan rabnaa inaan organize aan sameyno. sida aragtaan YouTube calaamadda hoos ayay joogtaa. waxaan rabnaa meesha home wixii ku xiga inaan keeno. waxaan leenahay setting ayaan leenahay. markaan setting dhahno, edit page markaan dhahno waa manage gareyn karnaa. marka waxaan soo qaadaynaa YouTube, waxaan keenaynaa wixii home ka dambeeya. okay, sida dadka hore ugu arkaan. marka haddii aan page-keena ku noqono, waad aragtaan YouTube-keena ayaa caadi oo qofku u arki karaa. subscribe-na waa uu samayn karaa. aad ayaad u mahadsantihiin akhyaarta. haddii aad ka hesheen tutorial-kan aad ku xiisaha badan, please like the video and share.